بيجج بقى لسوق يبقى يسوق فيسبوك يسوق قلنا نبادي النور قلنا بيجج عصب يستارين marka oo beesal lacagtii umada Soomaaliyeed ee rabi askariga duurka ku jira dagaalamaya in daawo loogu siiyo ama mushaar looga dhigo ayay wiilal maxaan ku idhaahdaato inta siiyeen bay halka ka caaya dadka afuufa kooxdii kuwa kale soo kiciyeen Soomaaliga dagaalkii khawaarijta meesha uu ka baxay waxa bilowday dagaal damujadiid iyo nabad iyo nolol ah nimankan malaala dagaalama mise yaan la dagaalamin hadda kan waan la dagaalamayaa buu kii la dagaalamay maxaa dagaalka loogu soo qaaday ciidankii baa la laayay kiin bas soo washaa mucaarad ma hayno ciidan ma wadaninoo beelaha kuma shireen xamar ma beelaha soo dhex maraan iyaguna maxay khawaarijta u soo dhex marayaan kuwan in la dagaalamo yaa la isku ogaa moogtahay laakiin beelaha inay soo dhex maraan oo dadka badan ka soo dhex dhawaaqaan صح بقى هاي أدو مركح قال له ترنا مركح ما فيان كدولة بحش محمود هاي فيري أيها قد حضوضة أيها قد حضوضة أيها سعد سوق شيء إن الجيران خوارج سياسات ومدحوين محمد عبد الله فرماتشو خيامي ودتك كهر كاني ودبعتدي يقول درهدي مدحوين محمد عبد الله فرماتشو maxaan ku idhaahdaa uu la kabaraaday mudada 5 sano ah inay sabab u ahaayeen Soomaaliga waxa aan ka hadlaynaa wuxuu ahaa khalad noo muuqda kuwan khalad ma miya Soomaaliga taweelayno kun goor baan sheegaynaa dhulkaadii kuwan waa sharaaf kuma dhihinaan Soomaaliga hadda ku lahaa al-shabaab kama madnaan ku eri farmaajo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed buu ahaa talada ummadda Soomaaliyeed buu hayay aniga madaxweynahaygu ahaa Soomaaliga laakiin qaabka uu wax u wado yaan diiday hadda dhalashadii abtir markay noqotana dad baan isugu xignaa deegaanna waan wadaagnaa wax walbana waan wadaagnaa ninna lagu joojin maayo oo marti looga noqon maayo haddii hooyaday iyo aabahay ay noqdaan khaladka ay galaan inaan sheego waa mid kaliya ee qofka bani aadamku inaad nacam la noqoto oo maalinba kii maxaan ku idhaahdaa ama aad qabyaalad ugu sacabatunto qof ama aad shilin qof ku taageerto labadoodaba waxa leenahay hubka dhiga qoryaha dhiga joojiya farmaajo teamkiisu haday wali isma haystaan oo iyagiiba kala yaacaya haday is haystaan oo farmaajo wax la doonayaan chance baa haysataane suga chancekiina qoladana chance-ka siiya markii hal sano ay u dhimantay ama 2 sano u dhamaysto marka soo kaca laakiin tiyoon kooga joogin ma sugtay waxa la yiri walba sariiglay sad male miyaa la dhigi riwaad waxa aad qabowdaa naftu ay qushuucdaa marka aad quraankiyo qowlka ay barateed qalbigaaga galisa ubadkood qurxisood qowlka ay bartaad qiimaha adduunkiyo aakhirana ku ceeshta qaar kalena ku darso qowlka nabiga Allahumma salli ala Muhammad علشان حديثكيو فقهي فنون كله أي فائدة مدرسة معلم قرآن أونلاين أو دورية 10 سنة جلستي wax ka dhiga macallimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro caruurta qurbaha ardaydu waxay casharada ku qaadan karaan qaab online waqti kasta iyo meel kasta oo ay caalamka ka joogaan معلم قرآن أونلاين waxa lagu bartaa xifdinta quraanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka wixii faafaahinayntaas dheer kala xiriir تلفون شاشة كحران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أحسن دعوة ديال كسر وهذا برنامج كنا بهذا القيبة وحين كويجينا مع المهن وح برها بلشدة يوربهين الصومالية القبصدي دجال الأرض حياة كوحدة مدحوين حسن شيخ محمود يكوحدي هراء مدحويني هراء الصومالية محمد عبد الله فرماجو دجال كاس مالمه ودن بي برها بلشدة سيد فيسبوك يوتيوب كي تويتر كي يوربهين القبصدي هذا دجال كمحو سلك كوهيا يا دجال لما يا waxaan eegi doonaa jaamac galad baa ila joogay sidoo kale beejid ama madallo markii hore lagu taageeri jiray dawladii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo muddo hawada ka maqnaa oo dib u soo laabtay maalmahan hadaba madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa ayaa waxay bilaabeen inay mucaaradaan dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaas ayaan eegi doonaa jaamac ila joogay jaamac dhow ma sha Allah dhow waata maalmahan dagaal baa bilowday waxa muddo xitaa foxki markii hore saaraa wajiga labaad dagaalka lagu jiray kooxda dawladda ka soo horjeeda in waxoogaa laga leexiyay oo uu bilowday dagaal u dhaxeeya kooxdii madaxweyne farmaajo iyo kooxda madaxweyne xasan sheekh maxamuud say wuxuu socdaa halkaas wax ka bilowday
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهان بمدة صوماليات ميل كستي وجوجان بوحنا لله السلام الله عليكم مالمهن dagaaladii way iska bateen ummadda dhan baa diriraysa wax lagu dirirahayaan lama garanayo qolo la diriraysa waana runtii de astaamaha ama maartay amaaradaha aakhiru zamaanka in ummaddu baangadaha wada qaadato oo maxaa ku dhahaa midka ugu dhow oo ableyda la aado dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ee garwadeenka uu yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhana kooxaha khawaarijta ah ee shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada badan ku soo hayay muddada dheer dagaalkaasi guulo badan bay dawladdu ka gaadhay horumar ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya waa ciidamo qaran oo ummadda Soomaaliyeed yaani isteelaha ay qabaan uu muujinayo in ay u siman yihiin wada leeyihiin astaantii qaranka ay yihiin ciidanku marka uu de ku jiro qaab dhismeed systemyo kala duwan ayaa kala dhaxla waxa jiray maamulkii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamo de dalku uu lahaa oo uu dhaxlay iyo ciidamo uu isagu soo kordhiyay oo uu systemkii uu isagu hogaaminayay ay ka hawlgaleen dadaal badanna ay geliyeen wax badan bay ciidamada marka iyo ku soo kordhisay xukuumaddaasi ciidamada waxa jiray dibadaha loogu diray tababaro Eritrea iyo Turkiga iyo meelo kalaba qadar ciidamadii maamulkii madaxweyne Farmaajo waxay doonayeen ciidamada inay iyagu calfadaan maadaama ay juhud ku bixiyeen iyo waxaan ku bixiyay de ku horeeyay rag baa juhud ku bixiyay Soomaa qaybihii ciidamada ka soo gaaray wayaga de dhufayska ka galay maxaan ku leeyahay tabaar bulsho iyo sayidka iyo daljirka dahsoon iyo tiyaatarka iyo agaga wayaga difaaciyada ka xidhay ee beebeeyadu halka ay islaamaha baacsanayeen kuwii kalena mayna imaanin goortii maamulkii ama systemkii meesha uu ka baxay ee system kale oo ku yimid doorasho uu meesha yimid hawshi waa la wareegay Soomaa dagaalkii marka systemkii horena dagaal buu ku jiray oo ciidamadana uu diyaarsaday systemkana dagaal buu ciidankii geliyay labada dagaal baa marka kala nooc ahaa labada dagaal yaa kala nooc ahaa systemkii hore ama hogaamintii hore ciidankan waxay ugu tala galeen inay kula dagaalamaan dalka Soomaaliya cid walba oo iyaga ka soo horjeeda aragtidooda inay kula dagaalamaan day maamulada tahay haday maxaan ku yiraahdaa ayto beelaha ama qabaa'ilada tahay haday mucaaradka tahay haday ciidamo kale oo iyaga ka hor yimid yihiin yaani cid walba oo iyaga rabitaanka iyo qaab shaqeedkooda ka hor imaata ayaa ciidankan loo diyaariyay ee ma ahayn ciidanku ciidan loo diyaariyay in qarannimada iyo dawladnimada iyo jiritaanka dalka Soomaaliya in lagu difaaco ma ahayn maya waa aragtidii meesha taale ee saxda ahayd askarigii la soo tababaray ee Turkiga lagu soo tababaray ee dhaqaalaha iyo maxaan ku wax walba lagu bixiyay markii difaac laga geliyay beerta baar bulsho laga geliyay yu la dagaalamay wuxuu la dagaalamay madaxweynihii markaa jiray madaxweynihii xilka ku wareejiyay oo isna rabay inuu mar kale meesha fadhiisto Soomaaliya garan ciidankii marka ciidan qaabka loo dhisay bay ahaayeen systemka iyo maamulkaas markaa jirayna uu ugu tala galay in uu ku ballaariyo jiritaankiisa iyo awoodihiisa tiimayna dhicin kuwana la wareegay kuwana waxay ku dhawaaqeen in ay la dagaalamayaan al-shabaab oo lagu sugayo dawladnimada Soomaaliya way bilaabeen horumar fiican bay ka gaadheen askartii waa dhimanaysaa qaybtii ugu horeeyay markay dhinteen maanta hebel baa la dilay waa waray farxan qarowla la dilay
haddana hebel baa la dilay haddana waxaa la dilay maxaan ku idhaahdaa tukii kale maantana sargaal hebel baa la dilay 900 oo sargaal baa la dilay 80 baa xagga lagu xiray waxaa lala dagaalamayaa ciidamadii qaranka ciidankii baa la burburinayaa ciidankii baa la baabi'inayaa qayladhaan baa afka lagu shubtay yaa dhahay markaas taageerayaashii maamulkii hore madaxweyne farmaajo waad ayaa dhahaya waxay hogaamintii xilligaasi aamineen dadkii lala dagaalamayay ee ay ahayd in lala dagaalamo oo laga dheereeyo dawladnimada Soomaaliya in ay taladii dalka Soomaaliya la wareegeen mana ahayn wax qarsoon ee waatii uu Fahad Yaasiin Xaaji Daahir si caadi u yiri wuxuu yiri wad ogeyd waxaad aan ku sheegahay ma aha ama ka qarsoon ama Soomaaliya ka qarsoon sirtii qaranka Soomaaliyeed ninkii laga ilaalinay iyo kii dawladnimada Soomaaliya laga ilaalinay ya gacanta u gashay oo ma hasalaad iyo Xasan Sheekh ما حصلت بول حسن شموس يا حسن أبو كله ما حصلت يا كنا حسن ورقة اسمه متباهي من الدولة لماذا لقينا من سيرتها لقينا واضح سوما ذكر وأحمر كقرصونا أما لاب كتير ما أنا أهين كل مركب وحيس لهين عيدا كنت إدين سيشوجو وحريها كوسي تشيران وسيء وسكر عيان موقته عيدا كيو حريها كتير مركي حسن حلقي سوق رماضو أسوق كعدان oo hadhow ololaha dagaalka iyo aad gali doontaanna ciidanku qaybha ka noqdo ololaha aad gali doontaan ee doorashada aad dib u gali doontaan idinku cududii ciidankan iyagu inay Eritrea u dirsadeen oo iyagu ay leeyihiin ka nabad iyo nolol ahaan bay aaminsanayeen Turkiga iyagu ay u dirsadeen ka nabad iyo nolol ahaan wax dal iyo dad Soomaaliyeed ay leeyihiin ama ka dhaxayana oo san ahayn ficilkooda maantaana inoo sheegayo inoo muujinaya ciidankii marka idin diyaarsan oo meel idin ku jira oo kooxda Xasan ee sida maaragtay khaladka talada ula wareegtay ay mushaar siinaysay markii la gaar xilligeedii ololaha koobaad ba ciidanku ha galaan hadii loo baahdo albaabada ha xidhan iyo jidadka doorasho qasab halka aad ku soo gashaan tiibay sugayeen moogtahay ciidankii baa marka la isticmaalo oo nidaamkii iyo qorshihii loogu tala galay la mariyay oo muxuu ahaa inay dhintaan oo dalkooda u dhintaan oo difaacaan oo ay cadawga la dagaalamaan oo wiilba wiil uu ku simo geerida soo garan ciidanka waxa loo qorayay ee tuutaha loogu geliyay ee u socday ee qorshaha ahaa ee loo dhaariyay inay dhintaan u bay ahayd ciidanka oo dhamaanay bay arkeen aflabadii bay yeedheen لكن دبعتهم مركب ماشي كتاجن تهاي وهالكا واضح qaar kamida ragii madaxweynihii hore taageersanaa oo baraha bulshada wax ku qoray waxay sheegayaan in ciidamada la shirqool waa si ay hadal ku dhigaan oo sida caws weyne iyo wajigii koobaad iyadana meel ay jiraan ciidamada in lagu laayay oo ciidankii aad loo laayay oo saraakiil la qabsaday oo ilaahay hadda xitaa raq iyo ruux midna aan lahayn eedahaas biyo ay dalishanayaan marka salaasma oran karo dhinacaas eelaskeeda waa arin waji kale leh ma maxaa keeni kara in ciidan khaladaad fiiri khalad kale soo lagu maaday kara dawladda marka okaadi khaladaad uu imaan karaa dadku waa bani aadam siba wax loo arki karaa xaajada sideedaba qofba dhinac buu ka istaagaa oo labadii nin ee saaxiibada ahaa dhan xiir dhex maray dhan xiir miyaad taqaanaa shaydaan weyn weeyaan baa la yidhi mugta intana wuu xiran yahay intana timuu ku leeyahay laba nin oo saaxiibo lilaahi oo wada socda oo weligoodba rafiiq soo ahaa oo ehludiin ahaa unbuu si kale u kala gooyu garan waayay nimankan isugu diro timihii dhinac soo xiiray uu dhex maray midna wuxuu arkay dhinacii timaha lahaa midna wuxuu arkay dhinacii xiiraa midna baa dhowr bilow qofku timo dheer muxuu ahaa wuxuu si qofka xiiran كيكنا ها أنت ما حبتي ما بالوجين هل كان صديق كودك بالله سواء غيره إلا كان الغاغين كوحها كدو ذي عيدا بالله شرق ولا يه وحبا السيدان هو حاجة دينا وك استاجران واحد بكم تشرو لكن ومركي كاستاجيان وإن أي وجا استاجان سي ودنيات يا سومالي نما أي كتشرت لكن سي أن وحبل الحيرين وأن نظام الدولي اللي حيرين وأن دقن ونكسل اللي حيرين وأن أخلاق لجو درين
oo aan maxaan ku idhaahdaa to wax uun wanaaga aan maaragtay lagu barxaynin ee barti cadowgu taagna barka fog laga istaagayo dee taasi ma aha sax ma aha Soomaa garan ciidanku waa la shirqoolay bal ciidan lama shirqoolaba yaa ciidan shirqooli kara fiiri ciidan dagaal u baxay oo gaadiidkoodii dagaal ka wata oo goob dagaal u jeeda oo dagaal la soo galay oo raba haddana kuwa kale inay galaan ma aqliga caafimaadka qaba yeeli kara waa la shirqoolay see loo shirqooli kara nin in wax dilo iyo in la dilo diyaar u ah kay shirqoolay mu kolka hore waxbad ku dhufto see loo shirqooli kara laba ma ciidan baa la shirqoolay fiiri say ku dhici kartaa ciidan dagaal ku jira shidaalkii gaadiidka uga dhamaado ma ciidankii goobta joogay ayaa ku yiri shidaal baa naga dhamaaday oo waa nala shirqoolay mise xariif basbaasaysan oo halka maaragtay ka raadinayo wax maaragtay doonaya in la yiraahdo hebel baasaa yiri waa tahay ka lama dhageysanayo si fiican ku fahmay jaamac muhiimaddu marka waxay tahay ciidan la shirqooli karaa ma jiro ciidanka markay dagaal u kacaan istaraatiijiyada ka xumaan karta qorshaha dagaalgelinta iyo hawlgelinta ciidanka waxba khaldami kara sibay wax noqon karaan ayagoon waxba khaldamin oo sax ah oo taangiyadooda iyo tiknikadooda iyo diyaaradahooda wata yaa laga adkaan karaa oo birta laga asli karaa oo saraakiisha la qabanaya oo taliyayaasha la qabanaya oo maxaan ku idhaahdaa baabuurta la burburinaya Soomaa garan ciidankii aan rabnay inaan isticmaalo oo aan u isticmaalo habraha iyo caruurta yaa al-shabaab la diray inta meesha taalo waa inta weey okay sababtoo ah anaga waxaan aaminsanahay ciidanka in anaga lahayn oo anaga aan dirsanay Soomaa garan noocii aan rabnay inaan uga faa'iideysanana وما نفعل ركبة مركا دلكي يدكي الدولة Soomaaliya uga faa'iideynaya inta meesha taala iyo waa waraydan iyo maryaxoor kan iyo qayladhaantan iyo maxaan ku idhaahdaayo beentan iyo waxa soo dhan kaliya waxa uu laga xun yahay ciidanka dagaalka galay wax kale oo dhib oo meesha yaalahay haba yaraatee ma ay jirto wata dhowr maalmood gudahood kooxda madaxweynaha Xasan Maxamed waxay sii daayeen laba barnaamij oo wariyaasha baraha bulshada qaarkood waa afka dheer loo dhiibay oo wax looga sheegayo lagu eedeynayo maartay madaxweynihii hore iyo taliyihii hore Nisa Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo oo leeyahay kooxda la shaqeynayaan qabiiladii ay isku dirayaan khilaaf ay abuurayaan waxay fashilayaan dagaalkii dawladda ay kula jirtay labada nin ee wadanka aan joogin ee madaxweyne Farmaajona mar dhaxaas uu hadlay oo hawlgalka taageeray kan kalena uu san hadlin ba waraysigii ugu dambeeyay iyo fariintii waa dhawayta uu ra'iisul wasaaraha kaga hadlayay waxay tahay waxa ay fashilayaan ay saameynta ay ku leeyihiin qabiilada ku nool Galmudug iyo Hirshabelle markii si dhaba loo hadlay muhiimad iyo ujeedo baa la leeyahay muhiimadda iyo ujeedada la leeyahayna waa in la fashiliyo dagaalkan dariiq kastaana loo marayaa nimanka aad sheekeynaysana dalka Soomaaliya dad xukumay ahaayeen oo iyagu maamula 5 sano iyo siyaada maamulayay dad badan bay ku leeyihiin gudaha dawladda dad badan iyo saaxiibo badan oo siyaasadeed bay leeyihiin saaxiibo iyo saraakiil ciidan oo iyagu ay darajooyin siiyeen ay leeyihiin xogta dalka iyo xaaladda dhabta ah ee wadanku uu ku jiro way la socdaan dadkii iyagu ay wax ka dhigeen ee ay xilalka u dhiibteen ee ay darajooyinka siiyeen way joogaan waxna way dhinteen waxna way nool yihiin waxna way shaqeynayaan oo wala sii dalacsiiyay way faantaa malaynaya dad marka Qobrus ka shaqeynaya ma aha dalkii ay maamulayeen madaxda ka ahaayeen ee iyagu ay lahaayeen dadkoodu ku noolaa ee ay madaxda iyo mas'uuliyiinta u ahaayeen way dalku hebel baa dibadda jirana waxa weeyaan salli baa lagu wada fadhiyaa sijaada yar baa lagu wada fadhiyaa nin badina kaga fadhiyaa adduunkii dhammaa Soomaaliya garan waxa suuragal ah oo xaqiiqo biyo kama dhibcaan oo qof kasta uu aamini kara saraakiisha maanta shaqeynaysa hay'adaha badan gaar ahaan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka in ay wali la shaqeynayaan systemkii hore qayb ka mid yaani kooxihii hore oo ay kula shaqeynayaan as saaxiibtinimo ma ay kula yihiin farmaajiye fahad marka ay kula shaqeynayaan ay kasbeen iyo dheef
عيب كل يجي وخايمين سرقالكي أدو أدلع سيسي إن سببت أدو أدلع سيسي محمد ما إنه هذه جوري كاغا شقية من رسول دلك وشقية إنه دلك وشقية هوشي صوت كلام ما هيان كبح لكن هذا سرقالكي أدو كفائدة سنية درجتي أساسي يدلع سينتي أدو كفائدة سنية أصوات دبقشوا وهذا حاجة أصوات درت دقارة حاجة دقارة أنا أصوات درته وده تكمل هبلة محن كل هذا توكسها بنجاسا حاجة كوسو دقي أنا بقول واحد ويشو سادك هذا واحد ويشو ده عسكري باهم وي نبى أن ندل الدفاع كو حكم كمان تشوفه كو شال الجيل وكهنا يكون دول دقالة ميمه كو جيل يرشيك وعادي سراكيشي هرنا هاوش ودي بهايان كون سراكيشي يتلياش عيدنك ودوا سماه إنكي إن ولا دقالة ميان حسن شيخ ولاها ياركيو ينروق ديقل وها لوجل يفرحان قرا ولا سماه نهاين فرحان بانو كو هالقبصة يا هاي يكن لا تونغور بكنا كسو هالقبصة يا فرحان كيا مارت الوها ديقل لوجل أنت مارت واحد كلا هاي تونغور بكنا لا هذا لا هذا بود العسي سمعنا كده مدول بنا حلك يسيب وداي مدنا قدرتي على يتيسي باكوتيمين مدنا واحد قال درحسو كان لا يقال حلك انت لا درعسيي با مددن وهي انت حسن جوول سو مجوغ هذا ان با لا قال حلك سوماهين انت يسيم وهي واحد درعسي مجلس تليها حيا كسريه تليها عيدك xoog dalku ah majaakal ka sareeyay درعسي taliyanimadu darajada lagu dalacsiinayo oo kaliya ma aha dalacsiintu askari waxyaalo meel badan buu ka dalacaa lacagtu ka dalacaa والعائلة سيجت ما قدوا ما العقبة اللي دلعسيه درجنا ولا دلعسيه سرية قوتوا صوما وسرية قاس دي هذا هل متبوغ لما سرية قودين النقطة مدحوين حسن شيخ محمود شال مركي فرماجة وحكم كجوبي وكي قبيلة شيرينية بيلها شيرينية حمر ركبضان أو مدح رسول مرة شخصية فكملها أي سبها يسنية فرماجة سونا طبعا ده موسى بيقوا سنين يقولوا حوي ودجال بكده حي وحي كلا قبسي waa la ogaa maanta maxay tahay adkaysi la'aanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa haysta farmaajo isagoo dalka aan joogin ma hadduu bari dalka yimaado maxay sameyn doonaan fiiri soo kuwa sulamayna dagaalamaynin teamkii farmaajo haayde oo maxaan ku yiraahdaa tumeena soo dhexmaraynin beelo de kuwan dagaalkii bay ku jiraan oo waxay sii dhexmarayaan waxay awoodaan shabaab bay soo dhexmarayaan saraakiisha ciidanka soo dhexmarayaan maxaan ku yiraahdaa admis bay soo dhexmarayaan cid walba soo dhexmarayaan meesha kursigan baa loo jeedaa labada dhinac waxay isku eedeynayaan kuwan waxay leeyihiin kooxdan bay wataan dawladda ka soo jeeda oo kuwii macnaha kooxda farmaajo waxay leeyihiin kooxda bay la socdaan oo ciidamada bay ku leynayaan kuwana waxay leeyihiin weligood wada shaqeeyeen farmaajo iyo kooxda dawladda ka soo horjeeda halkaas markaas oo un mucaaradnimo iyo xaafidnimo ma fiiri shabaab yaan horta wax kale lagaaga dhigin waa dad wiilal Soomaaliyeed weey Soomaaliya garan waa la isticmaalayaa waa lagu adeeganayaa qaab khaldan iyo waxba loo fahansiiyay ragga hoggaanka u ah iyo hogaamiyeyaasha kala duwan ee Soomaaliya soo maraya waxa weeyaan way isla shaqeeyaan tii hore ee farmaajo shabaab go'an bay ahayd sideedaba waa adiga leh anu malihi ma dhihin anu ma dhihin oo ciidamada badan ba tababartay ma dhihin iyaga yiri dawladda farmaajo tiri si cad u sheegtay ay ku tiri muqdisho يقول احتري كوربايتري كوربايتري حيتري لا أقول كوي لا تنكي كأو يريد يا أو يريد يا ويريد ناشك أو ناشك هاو يريد وسير كمالية ده كمها إن عبد الرحمن بيرد عالي محيي ده وقت يستوي حيري ما حسوسته بالشاق مركب عشور بس عشور بيقاتها بالشباب دي كده كقاتها suuqyadana ay ka aruursataa shirkadaha ay ka aruursataa bal ka waran bali arintaas ma jirtaa anu ila jooga ma xanta dadku markay iga maqan yihiin yaan xantaayan wax ka sheegaa buur hadaba ma wada sheekaysi caadi oo dad uu la hadlayo saa ku yiri mise ma waraysi ma waa la wareysanayay
meel walba ku jirtaa anuu ma ogin maana maqbaraysiga Soomaaliya adaan arkin wata Soomaaliya garan kuwana kama madna shabaabku kuna hadda jooga ha kuwa horna way ahaayeen kuwana kama madna laakiin labadooda markay noqoto kuwana waxbay umada tusayaan xogaa ficilay tuseen oo way dhaqdhaqaaqayaan way la dagaalamayaan soo garan kuwaas laakiin way naaxiyeen way koriyeen dalkoo dhan bay qabsadeen muqdisho ka arriminayeen madaxtooyada dhexdeeday joogeen oo xaadir ku ahaayeen oo kuwii qandaraasyada la siinayay ee shabaabka ahaa waa kuwii qarxiyay hotelkii muxuu ahaa Villa Rosa miyuu ahaa ragii lagu qabtay ee qaraxa soo hagay qandaraaslayaashii ugu weynaa Villa Soomaaliya joogay bay ahaayeen oo guriyahooda markii loogu tagay maxaan ku leeyahay cadaymihii iyo wixii oo dhan iyagoo taagan Soomaaliya garan shabaab marka ma aha balaayo cirka ka timin bay horta waa wiilal Soomaaliyeed waa niman Soomaaliyeed labada walaalaha midna madaxtooyada jooga midna shabaab jooga si fiican waa fahmaysaa Soomaaliya meesha muhiimadu marka waxay tahay nimankan ma la dagaalamaa mise yaan la dagaalamin hadda kan waan la dagaalamayaa buu kii la dagaalamay maxaa dagaalka loogu soo qaaday ciidankii baa la laayay kiin baa sida soo shaasoo mucaarad ma ahayno ciidan ma wadaninoo beelaha kuma shireen xamar may beelaha soo dhexmaraan iyaguna maxay khawaarijta u soo dhexmarayaan kuwan in la dagaalamo yaa la isku ogaa moogtahay laakiin beelaha inay soo dhexmaraan oo dad badan ka soo dhawaaqaan sax bay ahay dawladii shalay madaxweyne farmaajo aad baad uga soo horjeeday aad baad u rajin jirtay ma kama soo horjeeday ma aad baad u weerar jirtay walkan barnaamijyada ku sameyn jiray waa saxaynay dhigashadii waa mafia dhigashada dawladna kuwan waa run way ahaayeen xilliga iyada hadda laakiin waa madaxdii hore qaranka maantana wali sidii baad ugu shaambadeynaysaa inaysan wax naqad u haynin fiiri adu marka xagee lagu tirinay marka ma afayeenka dawladda xashan wuxuu wataa fiiri ayaga dhexdooda ayaa si cad isugu sheegay inay jiraan khawaarij siyaasadeed oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo khayaameeyay oo dadka ka hor keenay oo dhibaatadii iyo guuldaradii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maxaan ku idhaahdaa uu la kabaraaday muddada 5 sano ah inay sabab u ahaayeen Soomaaliya garan waxa aan ka hadlaynaa wuxuu ahaa khalad noo muuqda kuwan khalad ma miya Soomaaliya taweelayno kun goor baan sheegaynaa dhulkaadii kuwan waa sharaaf kuma dhihinaan Soomaaliya garan hadda ku lahaa shabaab kama madnaan ku eri Soomaaliya garan laakiin heerkii kuwii hore ay ka gaareen kama aysan gaadhin waa isfahanay baan u malaynayaa muhiimadu marka waxay tahay anaga qofna ma jeclan qofna ma nabcin Xasan Sheekh anaga beelna nama siiyo xilna nama kama rabno xoolana kama rabno Soomaaliya garan waa odayga Soomaaliyeed ee talada dalka Soomaaliya ay baarlamaanka Soomaaliya u dhiibeen hadii uu haleeyo waan sheegaynaa kun goor baanu sheegnay Soomaaliya garan khaladka iyo gafka ugu weyn ee maanta ku jirana horena waan uga hadlay haddana waan sheegayaa waa in uu dawladnimadii Soomaaliya ka jeclaaday koox aadama Soomaaliya garan laakiin wuxuu ku amaanan yahay oo ku taageerayaa oo ku garab istaagayaa in uu dagaal la galay kooxdii hooyooyinka iyo caruurta iyo ummadda Soomaaliyeed yar iyo weynba isku si maartay ula colaytay u laayay inuu kuwa la dagaalamay oo uu muujiyay inuu diyaar u yahay dalka in laga qabto taan waan ku taageerinaa tanna waan kaga soo horjeednaa oo markuu irir Soomaaliyeeyo maxaan ku idhaahdaa uu isku sii daayo Ismaaciil Bahal miyaa la yiraahdaa Ismaaciil Wargeliya odaga markuu isku sii daayo oo uu ka tala saarto waan sheegaynaa muhiimada marka waxay tahay farmaajo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed buu ahaa talada ummadda Soomaaliyeed buu ahaa aniga madaxweynahaygu ahaa Soomaaliya garan laakiin qaabka uu wax u wado yaan diiday hadda dhalasho iyo abtir markay noqotana dad baan isugu xignaa deegaanna waan wadaagnaa wax walbana waan wadaagnaa ninna lagu joojin maayo oo marti looga noqon maayo
haddii hooyaday iyo aabbahay ay noqdaan khaladka ay galaan inaan sheego waa midda keliya ee qofka bani aadamku yahay inaad nacam le noqoto ood maalinba kii maxaan ku idhaahdaa ama aad qabyaalad ugu sacabatunto qof ama aad shilin qof ku taageerto dee waa waxaasu jiritaan ma marka annagu waxaan diidayno waa system la qalloociyo waxaan doonaynana waa system Soomaaliyeed leedahay marka labadan qolo hadda waa dagaalamayaan soo maaha waxay ku dagaalamayaan ma fahmaysaa adigu noo sheeg xaraan bay isku haystaan wixii xaraan ah iyo isku haystaan waxay rabaan marka in qolo waliba shacabka Soomaaliyeed eeg beejaj baa la soo kiciyay iyo bogag Facebook yo qolada nabad iyo nolol qolada beejaj cusub iyo istaareen marka oo beesa lagu lacagtii ummadda Soomaaliyeed ee rabi askariga duurka ku jira dagaalamaya in daawo loogu siiyo ama mushaar looga dhigo ayay wiilal maxaan ku idhaahdaa inta siiyeen bay halka ka caaya dadka afuufa kooxdii kuwa kale soo kiciyeen Soomaaliya garan dagaalkii khawaarijta meesha uu ka baxay waxa bilowday dagaal damujadiid iyo nabad iyo nolol ah xagee ku dambeyn doona tarko Soomaaliya garan dagaalkan marka waa dagaal aafawi waa dagaal dadka lagu sii kala fogeynayo labadoodaba waxa leenahay hubka dhiga qoryaha dhiga joojiya farmaajo teamkiisu haday wali is haystaan oo iyagiiba kala yaacaya haday is haystaan oo farmaajo wax la doonayaan chance baa haysataane suga chancekiina qoladana chanceska siiya markii hal sano ay u dhimantay ama 2 sano u dhamaysto marka soo kaca laakiin tiyon kooga joogin ma sugtay waxa la yiri walba sariiglay sad male miyaa la dhigi riwaad xamar ahaan jiray 19 bilaay mucaaradnimada ma farmaajo markii xilli ku dhamaado dab xilliga kala bilaabay isna ma bilaabay markii waxa 20kii ahayd saagara markii ay gabagabada ahayd hal sano madaxweyne Xasan 2000 iyo 2020 ayay ahayd in xilka uu wareejiyo ama doorashadu ay dhacdo Soomaaliya ahayn hadayga u diiso ololihii doorashada la sii galay marka muhiimaddu waxay tahay haatan olole ballaaran baa socda campaign culus baa socda wax kalena looma socdo waxa la rabaa qoladan dagaalkan in la fashiliyo Xasan Sheekh iyo damujadiid ay ku jiraan anigu way barakeysan yihiin oo way wanaagsan yihiin oran maayo laakiin wax loo baahan yahay shaqo loo baahnaa in la qabto yey qabteen taasaan ku taageeraynaa kuwana waxay kula dagaalamayaan shaqadii ay qaban waayeen bay kuwana qabanayaan sida daraadeed annagu ma na guulaysanin iyaguna yina guulaysanin waa nooc xaasidnimo amoogta هلا مركز حاسدني داي dadku ma wada guulaysto mana wada guul dareysto hadaa shalay guul dareysateen oo khayaan iska dhaadhiceen bari baa laga yaabaa inaad reality-ga dib ugu soo noqotaan oo aad xaqiiqda wajahadaan oo guulaysataan oo Soomaali hogaamisaan qolaan Xasan Sheekhna waxa leeyahay beejajka iyo bogagan iyo balaayadan hadda aad furanaysaan ee dhaqaalahan loo isticmaalayo koox iyadiiba dhimatay oo iska tagtayba oo goor ay soo noqon aan laga warqabin yaani col hortii ha jabina هذا ما زال. هالهرتي هالشبينة لعقت مهل مناسبة كوبحية. ومالها أمد الصومالية. يعني لبعتوني لقونا التقرير فلن هدي أكتجين أدونك إن اللي يدون كل حساب تمين آخر اللي يدون كل حساب تمين. هذا ما صنتها. والجماعة ما سين داود يقضوا كنت سيكسو جوينا ثاني كلن ضمبه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وورسام محمد عبد النور. آد ما سلام يا أصحابتي إذا أنت موقعي يا مقعي قرنيسو يعيد والبوا الصومالية. halkan waxa weeye guriga Safina Balasa ee 7ka qaybta masaaka qaybta 7 ku dhagan underground-ka aad iyo aad ma soo dhaweynayna macaamiisha daahiyo roogag qiimo jaban oo macquul ah oo in raali galiyo oo aad uga helaysan ba meeshan yaalaan aad baan soo dhaweynayna daahiyada qiimahooda waa qiimo aad u jaban cid markaad aragtaan nin walba uu ogaan doona qiimaha aad u hooseeya ee roogag waa sidoo kale qiimo jaban baa igu imaanaysan insha Allah cid walba oo danaynaysa inay daah gadato ama roog gadato in halka ay ku soo gaagaan